waxbartay diyaarna u ahaa inay samata bixiyaan dadka iyo dalkoodaba. qaraxa ayaa xalay fiidkii ka dhacay maqaaxi si weyn loogu qaxweeyey kuna taalo meel aan sidaas uga fogeen bar kontarool oo ay ciidamada nabadsugidda ee hay-adda niise ku leeyihiin kilomitir 4. qaraxa ayaana yimid kadib markii gudaha maqaayadda Gelato Fino uu u galay ruux la sheegay inuu ahaa oday da ah oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. dadka ku dhintay weerarka waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin 15 ruux halka dhaawacana uu ka badan yahay 20 balse dawladda ayaa tirada dhimashada waxa ay ku sheegtay inaysan dhaafsiisaneen 7 ruux oo qura. maamadan oo ganacsi ku leh meel ku dhagan maqaayadda uu weerarka ka dhacay ayaa kulmiye uga warantay waxay indhaheeda ku aragtay. lagama hadli karo kulay hooyaan ahay wiilasha yaryar quruxda badna وما هني كرو يعني ولا شرير أنا وذا أقلي وهو يسيد وكلا دشان حتى صباحيا وما يشتاس كنا في معي هنا يحنا قبر يا جنة الفردوس marka aad timid goobtii ganacsigaadi uu qarax ka dhacay maxaa dareentay maxaad inaad ku aragtay aniga indhahayga waxa gudahana la galiyay oo wana laga ilaalinay ciidankii waxa meesha joogay ambalaasti waxa qaadaysay laakiin markii waxa la dhameeyay banaanka u soo baxnay kulay meesha wax qurux badan kama dhicin walow aysan soo gelin jalaatada gudaheeda ma soo gelin jalaatada banaankeeda bira ku xiran birtaasi dhinaca laamiga xigtuu soo istaagay qofkii isqarxiyay marka wiilasha inta badan dhintay waxay u dhawaayeen meeshaasi qaraxa ee ninka uu soo istaagay qofkii isqarxiyay inaag wuxuu ahaa ma garanayo. dadka ku dhintay qaraxa ayaa u badan dhalinyaro waxbaratay kuwaas oo qaarkood magaalada Muqdisho ku sugnaa saacado kooban. Cabdirasaaq Cabdulqaadir Cilmi oo ka mid ahaa dhalinyaradaas ayaa la sheegay in magaalada Muqdisho uu soo gaaray shalay gelinkii hore isagoona bartiisa Facebook soo dhigay sawir uu ku muujinayo in uu dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo. Siraad Cabdulle Cawaale waa hooyada Cabdullaahi Cali Idris oo ka mid ahaa dhalinyaradii xalay ku baxay musiibadii Muqdisho waxayna inoo sheegtay in wiilkeeda uusan ka tirsaneen dawlad ama xitaa uusan u shaqaynayn hay'ad balse uu ahaa arday waxbarto haatan u socday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya si halkaasi uga sii wato waxbarashada heerka labaad. waxbarasho jaamacadeedu ka dhameeyay magaalada Muqdisho shahaado semitro Nairobi aad rabay oo aaday waaba isqoray lacagtii in la shubay in kala ma kala qaano marka waa chlorovirus ka la soo kulmay hadda sanadka bisha koowaad la bilaabay rabo macaan ما يحاس ملهين هو معاني كلنا نقول ما صاحبتي هاي كل جود يكون هالدول أويا يسوي عاي كل بنتي أو حتى الآن ما يتوحوا يلا استال مدينة كل صاحبتي سووا ربعين استال كحوق الوضع عاسو كركم إذا هذا اللي كان ما يتكون السباعي marka insha Allah way macaan ilaahay samirjimina naga siin marka adiga gormay ku dambeysay aragtidiisa الله أرسل صبر ينتي قرص دعاء أكس كنترول بشي كدم بيدو الصومالي كتير نيروبي يسجل بالملاذ أو صامقنا من أي ما سوي ما عليك استنى وكول معنا هذا هو يكون معنا عاون كله هنا ماشي هو أنا كول معنا إذا كستو ولسه هذي تري معلم كست والله هو حتى بدك أو كل شيء إنه صلنا عليه وصلنا على صاحب بديش هذه هذا قاليا والله يا هذا متكم إذا مرسط ما أنت أنا وسوا وأكل مدود كاجي شوال السرين مركنين بشاشة وحسكا دكتوردن بدكوردن أي والله أهل أيوين مركا مرير معاني حتى نيجي جامعة كبحنا هذا أربيس معهم ولكن سود الشماهم والصاحب كيس مشاهدته صاحبنا أي كصاحبين dadka adeegsada baraha bulshada ay ku xiriirtay social media ayaa tan ilaa iyo xalay si weyn u hadalhayay dhalinyaradii lahaa mustaqbalka ifaya waxaana waxyaabaha sida weyn dadka qaar ay u faaqidayeen kamid ah wax yar kadib markii uu qaraxa dhacay post ay barteeda Facebook soo dhigtay xildhibaan Khadiija Maxamed Deeriye oo ah wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyadoona soo qortay erayo kamid ah hees jaceyl oo uu ku luuqeeyo fanaanka da'da yar ee Guuleed Simba balse boqolaal ruux ayaa arintaas uga falceliyay si cara leh iyagoona wasiirka u tilmaamaya musiibada ka dhacday magaalada iyo sida aysan ula soconin waxaana jirtay in saacado kadib ama hal saac kadib ay soo qortay qoraal kale ugu tacsiyeynayso dadkii ku dhintay ee qaraxii Muqdisho ka dhacay sidoo kale Caliyare Cali oo dhawaantan loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa isna waqtigaas soo dhigay muuqaal lagu amaanayo madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa marxalad aad u cakiran iyadoona saacado ka hor
qarax miino uu ka dhacay degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir kaasoo ujeedkiisa ahaa maareeyaha dekedda muqdisho axmed washington balse uu ka badbaaday. xaaladahan oo dhan waxa ay ku soo beegmayaan xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisada siyaasadeed ee dalka ka jirta. cabdisalaam guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda nisa ayaa habaacsanaanta amniga ka jirta waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladdiiba ay ku mashquuleen mucaaradka. ma arka weligii cumar finish oo aniga ku fadwoonaya hal la dilo shabaab oo meesha lagu arka hal la dilo weligii ma arka laakiin inay heerkaas gaarto waa runtii waa wax cajiib ah oo musiibo ah oo daadle waa dhibaato weyn oo waddankan kusoo foolay. cumar finishne waa nin madaxweynuhu magacaabay haddii shacabku soo magacaabi lahaayeen wuxuu ahaanaya nin la yidhaho shacabku la xisaabtama ninkan laakiin nin madaxweyne magacaabay kuma hadlo wax ka baxsan madaxweynaha xayndaafka iyo siyaasadiisa kama hadlo. marka taas sababtaas darteeda arkaysaa in maarata cabsida loo arko dowladdii ficil ka yimid hadalka ninkaas iskama hadle. dhinaca kale haddaad fiiriso dowladdu waxaalla waxay haysato awood iyo juhdi iyo energy ah waxay gelisay mucaaradka iyo siday kusoo noqon lahayd. waxaad arkaysa nin masaajidka hadlaya daraas mise shalay oo intaan ka ahayn maaragtay madaxweynaha iyo hebel waan habaaraynaa marka in masaajidya dowladda laga soo dadkii mucaaradka laga soo habaarayo oo aan lahayn war shabaab wax ka qabta oo aan dadkii lagu dhiirigelinaynin sida amniga waddanka wax looga qaba lahay waxaan u arkaa inay dowladdu madax habaaminayso qaabkii amni lagu sugi lahaa. waxaan u arkaa dowladdu inay enerjigeeda iyo juhdigeedii ku bixinayso wax ka bedelan waxay ahaydeen lagu bixi taasuna waxay keenaysaa baylaha iyo dhibaato weyn oo ummaddan ku timaado. dhalinyaradii xalay uu qaraxa ku galaaftay magaalada muqdisho ayaa goordhow aas wadajira waxaa loogu sameeyey isla magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitaalka xoogga waxaana aaskooda ka soo qayb galay boqolaal ruux oo ka damqaday geerida naxdinta le ee ku timid. aad buu mahadsan yahay waryaheena cabdulaahi maxamed cali oo warbixintaas inoo diyaariyey.